Erling Haaland oo door bidaya inuu ku biiro koox weyn oo ka dhisan La Liga. Erling Haaland ayaa la sheegay inuu door bidayo inuu ku biiro kooxda Barcelona halkii uu ku biiri lahaa Real Madrid sida laga soo xigtay warbixin cusub oo ka soo baxday El Nacional. Weeraryahanka reer Norway wuxuu horey u muujiyay xiisaha uu u qabo horyaalka La Liga isagoo xusay labada kooxood ee waaweyn Real Madrid iyo Barcelona, laakiin hadda wuxuu meesha ka saaray Madrid muddo dhow iyo mid dhexba sababtoo ah arrimo farsamo ma ahan dhaqaale. Vinicius Junior iyo Kylian Mbappe ayaa lagu wadaa inay xudun u noqdaan weerarka Madrid, taas oo meesha ka saaraysa booska Haaland. Dhanka kale, Barcelona waxay u aragtaa fursad dahabi ah iyadoo Robert Lewandowski uu soo dhamaaday waayihiisa ciyaareed. Haaland wuxuu noqon karaa hogaamiye cusub oo kooxda. Madaxweyne Laporta iyo wakiilka Haaland Rafaela Benmenta waxay leeyihiin xiriir wanaagsan, taasoo fududeyn karta heshiiska. Inkastoo Barcelona ay weli la tacaalayso xaalado dhaqaale, heshiisyo cusub oo ay la galeen naag iyo korarka dakhliga ciyaaraha iyo kafaalqaadayaasha ayaa rajada sare u qaaday. Haddii dhaqaalaha kooxda uu sii xasilo, Haaland wuxuu noqon karaa xiddiga cusub ee Camp Nou sanada 2026. Haddii aan sii wadno wararka kale ee suuqa waxaa ka mid ah waa kan xiddiga Guardiola uu ku riyoodo inuu Etihad keeno. Warbixin ka soo baxday warbaahinta Spain ayaa muujisay horumar cusub oo ku saabsan mustaqbalka xiddiga Real Madrid ee Rodrigo Goes, kaas oo heshiiskiisu dhacayo xagaaga 2027. Wargeyska Marca ayaa sheegay in Rodrigo uusan ku faraxsanayn xaaladiisa haatan ee kooxda, isagoo dareemaya inuusan helin qadarin ku filan maadaama uu ku dambeeyo Jude Bellingham, Vinicius Junior iyo Kylian Mbappe. Sida laga soo xigtay warbixinta, tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa si weyn u jecel Rodrigo, wuxuuna isku dayay inuu la saxiixdo xagaagii hore, balse Real Madrid ayaa ka hor istaagtay inuu baxo. Hadda, haddii Manchester City ay mar kale la timaado isla dalabkii hore ee ciyaaryahanka, waxaa la filayaa in Rodrigo uu aqbalo. Waxaa sidoo kale la xusay in kooxo badan oo ka tirsan Premier League iyo qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee Yurub ay xiiseynayaan saxiixa xiddigan reer Brazil. Ugu dambeyntiina, tababaraha Liverpool oo hal sabab darteed u difaacay Mikel Arteta oo ay ku kacsan yihiin taageerayaasha Arsenal. Arne Slot ayaa ka jawaabay dhaleeceynta loo jeediyey Mikel Arteta ka hor kulanka Premier League ee Liverpool iyo Arsenal ee Maqribka, isagoo ammaanay shaqada uu tababaraha Gunners qabtay. Inkastoo Arsenal xilli ciyaareedkan koob la'aan ku dhamaysanayso kadib markii ay PSG ka reebtay Champions League, Slot wuxuu sheegay in Arteta uu dhisay koox gaar ah. Mikel ahaan waa inuu helaa ammaan badan sida uu kooxdiisa u ciyaarsiiyo, ayuu yiri. Arsenal ayaa caawa saf sharafeed u geli doonta kooxda Liverpool kadib markii loo calaamay saaray horyaalka Premier League. Xaaladda Arsenal ayaa sii xumaatay iyadoo 15 dhibcood ka dambeysa Liverpool. Si kastaba, Slot wuxuu diiday dhaleeceynta lagu hayo Arteta, isagoo tilmaamay